bal qiyaas daawade adigoo saaran diyaarad intaasoo fiid hawada korigu jirta si kadisna aad u maqashid qof dumar ah oo kula saaran diyaaradda oo uu hayo xanuunkii foosho isla markaana uu ilmo dhalan doono daqiiqada kadib yaa caawinaya hooyadaas umulaysa ilmaha dhashaana jinsiyadda waddankeebuu qaadanayaa waa hagaag sii daawo muuqaalka si aad u hesho jawaabaha su'aalahaas ugu horreyn hablaha shaqaalaha ah ee diyaaradda la socda ayaa u sameynaya meel ka qarsoon rakaabka saaran diyaaradda iyagoo badh ka mid ah kuraasida diyaaradda u faaruqin doona halka waxa dhammaan dumar ah ee saaran diyaaraddu u iman doonaan si ay u caawiyaan haba ahaadaan shaqaalaha diyaaradda ama kuwa rakaabka ah iyagoo dabcan marka hore isweydiin doona in qof dhakhtari ku jiro diyaaradda hadday jawaabtu noqotana haa waxa uu noqon doonaa dhakhtarkaasi qofka ka dhalinaya umusha laakiin haddii dhakhtar la waayo waxaa arrinka loo dayn doonaa ninka qaba gabadha haddii uu joogo ama mid ka mid ah hablaha ka shaqaynaya diyaaradda shaki kuma jiro inay noqon doonto xaaladdan dhalasho mid aad u dheer isla markaana ah dhibaato laakiin hubaashii waxay wax walba ku dhammaan doonaan diyaaradda gudaheeda diyaaradduna wax walaac iyo khalkhal u geli mayso umushaas inkastoo ay dawaqayaan oo ay dhibaatoonayaan hooyada dhalaysa ilmaha iyo dadka caawinayaaba haddana taasi kama dhigayso in umusha ilmaha laga soo tuuro iyadoo ay jirto suuragal uu ilmahaasi dhicis ku noqon karo tusaale ahaan waxa uu dhicis ugu noqonayaa hooyo uur leh oo soo gashay safar diyaaradeed oo wakhti dheera iyadoo xitaa aanay diyaaradda saarnayn wax dawooyin laakiin nasiib wanaag suurtagalnimada inay taasi timaado waxay dhacdaa mar kastoo ay safraan 36 milyan oo qof siday dhakhaatiirtu sheegeenna waa khatar in diyaarad safar ku jirta lagu dhex umulo sababo dhowraba awgood waxaana ka mid ah in ilmaha uurka ku jira ay neeftu ku adkaato sababtoo ah cadaadiska ka imanaya gudaha diyaaradda awgeed lagu daray in aan laga helayn diyaaradda dhexdeeda dad ku takhasusay umusha iyo sidoo kale qalab la'aanta ka jirta iyo meeshii ku munaasibka ahayd ee ku umusho haddaba markaynu halkaa marayno sidee u dhammaanaysaa hawshan cakiran ugu horrayn waxaa la isticmaali doonaa shandada yar ee caafimaad ee saaran diyuuradda intaa kadibna markuu ilmuhu badbaado adduunyadana soo gaadho waxaan u daadegaynaa su'aasha kale ah ilmahan yar ee dhashay jinsiyadda waddankeebuu helayaa haddii uu ilmahaasi ku dhashay hawada dawladaha ay ka midka yihiin Jarmalka iyo Maraykanku waxa uu qaadanayaa dhalashada waddamadaas laakiin bal ka warrama hadduu ku dhasho meel aan la garanayn ama badweynta korkeedaba tusaale ahaan xaaladdan oo kale waalidiinta ilmaha dhalay ayaa doorashada ugu weyn leh tusaale ahaan waxaa suuragal ah in ilmuhu qaato jinsiyadda hooyadii haddii ay aqbasho ama waxay awood u leeyihiin waalidku inay cunugooda siiyaan dhalashada waddanka ay ku socoto diyaaraddan ay saaran yihiin matalan hadday diyaaraddu ku socoto Ingiriiska waxa uu cunugu qaadanaya dhalashada waddanka Ingiriiska waxa kale oo jira waddamo siiya dhalasho haddii diyaarad hawadooda maraysa uu ilmo ku dhasho sida Canada oo kale waxaana ku dhashay diyaarad korkeed cunug carbeed oo Yemen ka soo jeeda laguna magacaabo Yaxya Muraad isagoo ku dhashay diyaarad maraysay kuna jirtay xuduudda waddanka boqortooyada Sacuudi Arabiya nasiib wanaagiisana waa caafimaad ku dhashay halka marka uu dhashay kadib ay 3 dawladood oo waaweynaysiiyeen 3 jinsiyadood oo kala duwan laguna tiriyo jinsiyadaha ugu qiimaha badan maanta caalamka waana jinsiyadaha kala ah dhalashada Ingiriiska dhalashada waqooyiga Ireland iyo dhalashada waddanka Maraykanka iyagoo dhammaantoodna jaayisooyin wada siiyay cunugaas yar waxaanu ka helay dhalashooyin dhammaan dawladaha ay hawadooda martay diyuuraddii Sacuudiga markaas isagoo mustaqbalkana noqon doona mid wada haysta jinsiyadaha 3 waddan aynu soo sheegnay halka uu sidoo kale abaalmarin ka helay shirkaddii diyaaradeed ee uu ku dhex dhashay abaalmarintaas oo ah inuu awood u leeyahay inuu goor kasta iyo meel kasta si bilaash ah ugu raaco uguna safro diyaaraddaas noloshiisa daawade haddaad ka heshay muuqaalkan iyo mawduucan xiisaha leh like saar hana ilaawin inaad subscribe tirahdid oo nagu soo biirtid